Hay'adda Somecare Germany ee xarunteedu ay tahay dalka Jarmalka ayaa markii ugu horeysay deeq ka kooban sariiro iyo qalabka dhakhaatiirta ay isticmaalaan ugu deeqay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Deeqdan oo rarkeedu ahaa 2 kunteenar oo ay saaran yihiin in ku dhow 100 sariirood ayaa waxa hay'addu ay kala soo wareegtay cisbitaalka Bruce Clinic oo markii hore deeqdan ugu deeqay isla markaasna ay wakiil uga ahayd hay'adda Somecare Germany. Gudoomiyaha hay'adda Somecare Injineer Maxamed Cali iyo maamulaha cisbitaalkaasi Dr. Reisa Risman oo hadal kooban siiyey warbaahinta kana hadlay in ay tahay muhiimadda koowaad ka qayb qaadashada arrimaha caafimaadka oo ay ka bilaamato ayay dhaheen qofka noloshiisa. Waa kan Maxamed Cabdiraxmaan Cali madaxa hay'adda Somecare oo ku hormaray hadalka. noo suura gashay inaanu u dirno dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee dalka Itoobiya shixnad ka kooban qalab caafimaad oo u badan 80 sariirood. qalabkan oo ka mid ah qalab fara badan oo hay'adda Somecare Germany ay ugu deeqday deegaanka Soomaaliyeed ee dalka Itoobiya. waxaan xaqiiqdii anigu qof ahaan khaasatan tegay dalka sanadkii hore halkaas oo aan ku arkay baahida ballaaran ee ka jirta deegaanka khaasatan dhanka caafimaadka. sida la ajligeed dadaal dheer kadib waxaa noo suura gashay inaanu guddoonno deeq caafimaad oo u badan qalab khaasatan qaybtan oo ah qaybtii ugu horeysay oo ka kooban 80 sariirood iyo qalabyo kale oo dhowr ah. Ich sehr, dass unsere Betten noch Verwendung bekommen bei Ihnen in Äthiopien, dass wir Sie da unterstützen können. Das ist mir persönlich eine sehr große Freude. Wir haben noch so viele Betten gehabt hier und es wäre wirklich schade gewesen, wenn wir sie Ihnen nicht geben konnten. Und ich bedanke mich ganz arg beim Herrn Ali, der das so großartig jedes Mal arrangiert hat und organisiert hat. Die Zusammenarbeit ist richtig gut und ich freue mich, dass wir Ihnen noch weitere Betten zur Verfügung stellen können. Wir bekommen neue Betten, elektrische, und da ist es einfach eine große Freude, dass ich jetzt mitbekomme, dass die Betten nicht verschrottet werden. Die sind doch so gut, und deswegen ich freue mich, dass Sie in Äthiopien, dass wir Sie unterstützen können. Dhowaan waxaa laga bilaabi doonaa deegaanada Soomaalida Itoobiya howlo la xiriira qalliinka faruuryaha iyo dhabxanaga oo ay ka fulinayso hay'adda Somecare oo kaashanaysa hay'adda faruuryaha ee dalka Jarmalka. Hay'addu waxay sidoo kale qalliimo noocan uga fulisay dalka Soomaaliya. Sidoo kale waxay gaarsiisay qalab isugu jira daawooyin iyo sidoo kale qalabka dhakhaatiirta iyo cisbitaalada. Cabdinaasir Yaasiin, SBC, Germany.